الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم dadka muslimiintu ilaahay caza wajal hadduu isku keeno waxa ugu wanaagsan ee ay ka wada hadlaan waa alla ka cabsi waana dardaarankii ilaahay caza wajal uu khalaa'iqdii naga horeysay basharka ahayd iyo kuwa dambe iyo kuwa joogaba ilaahay jalla wa ala uu kula dardaarmay taqwadu ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إلى آخر الآية ووصية ودردارا رب العالمين كأيا الله دردار ما يأدومه كوي نجاه الرأي إنك يا إلهي عز وجل والنبي ذا أصدر يا شريعة الله أصدر بي يا إنك بوحى لنا لا يا هي الله كبقى alla ka cabsigu qur-aanka 208 iyo 50 mowduc ayaa qur-aanka lagu sheegay alla ka cabsiga 258 makaan 182 meelood waxaa ilaahay uu kaga hadlay taqwada بصيغة الفعل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة لحدا يتضبع مكان إلهي عز وجل وحوك قورم بصيغة الاسم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام nin saxaabada ka mid ah u yimid oo ku yidhi yaa rasuul allah innii uriidu safaran fa awsinii waxaan rabaa safar inaan aado ila dardaaran waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi uusiika bitaqwa allah waxaan kugula dardaarmayaa inaad ilaahay ka cabsato waatakbiira calaa kulli sharaf meel kastoo taaga ood koraysidna meel kastoo dalcada ood ka baxaysidna waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam inaad ilaahay aada weynaysid kunaa idaa nazalnaa sabbaxnaa waidaa sacidnaa kabarnaa bay asxaabta odhan jireen marka meel aan ka baxaynana waxaan odhan jirnay allahu akbar kunaa nukabir ilaahay bay weynaynayeen meel kastoo koraysa ilaahay baa ka sii koreeya weeyaan meel kastoo sare ilaahay baa ka sarreeya waidaa nazalnaa sabbaxnaa haddaan daadagaynana oon meel hoos uga daadagaynana tasbiix baanu la imanayno subxaan allah baan odhan jirnay waayo tarafucu waxa weeyaan waa takabur tanazulkuna maaragtaana wuxuu tilmaamaa maaragtaanay nuqsaan ayuu sheegaa marka kor loo baxayana wixii koreeyaba ilaahay waa ka koreeya marka hoos loo daadegayana waa nuqsaan weeyaan oo bini aadanka daatadiisu inuu kor u socdo rabaa qofka bini aadanku xaq dhaqaale iyo dhinac walba bini aadanku wuxuu jecel yahay kor inuu u socdo hoos inuu socdo ma jeclo lidaalika maadaama ay hoostu ay nuqsaan ay tahay ayuu nebigu asxaabtiisa baray inay yidhahdaan subxaana allah ilaahay baa xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka hufan saxaabi kalaa nabigeena u yimid calayhi salaatu wasalaam oo yidhi innii uriidu safaran fazawidnii yaa rasuula allah safar baan rabaa inaan aadoon u baxee isahay buu ka yidhi
وزادك ننكا وشيغا يوبا ليدي مركا حديثك شرحي علماء أن eegnay wuxuu noqday zaadka uu sheegay zaadka ma aragtaan ay xisiga sahay raashin iyo wixii la halmaala walaakiin nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay zaadka runtu inuu yahay alla ka cabsi waa uu duceeyo wuxuu ku yiri zawadaka Allahu taqwa ilaahay alla ka cabsi sahay ha kaaga yeelo buu ku yiri maxaa yeelay alla ka cabsigaasi xadarkaagana waxbuu ku tarayaa safarkaagana waxbuu ku tarayaa yaraantaada alla ka cabsigu waxbay ku taraysaa weynaantaadana alla ka cabsigu waxbuu ku tarayaa markaa buu ninkii hadalka sii wato wuxuu yidhi zidnii ii biiri markaa buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam waqafara dambaka dembigaagana allaha dhaafo markaa buu haddana yidhi ii ziyaadi oo ii biiri markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ويسر لك الخير حيثما كنت هل كان دونت بجوجو خير كالله كود بيرايي ودي قبشديسي سمينتيس لبدا حديث هو الترمذي منه صحيح منه حسن تقوى اهميه داس الى الله كعبسه اذا تقوى ما معنى التقوى تقوى ووحي معروف الهي كفري والله تمادو وحي منكر شرعه كان ريبي او اد كجوجسته تقوى waxa kale culimadu ku macnayaan waa muraaqaba adoo qalbigaaga mar walba ku haya inuu ilaahay ku jeedo oo ku arkayo ku maqlayo فوائد التقوى لما soo koobi karayo quraanka meelo badan baa ilaahay kaga warramay taqwada fawaa'ideeda ilaahay allahi ku abuuray ku jirsiyay hadaad jeclaato inuu mar walba macaaga ahaado taqwada ayaa lagu kasbadaa taqwada hadaad doonaysa ilaahay inuu macaaga ahaado mar walba adiga kula jiro oo uu ku heliyo oo uu ku kaalmeeyo oo garabkaaga mar walba aad ilaahay jalla wa ala aad ka hesha hadaad rabto waa inaad noqoto qof ilaahay ka baqaya إن الله مع الذين اتقوا إلهي بشيء إلهي أيو لجرا دتك أساق كبقى إلهي لجرا والذين هم محسنون ولبا لك عبس كليا ماها وحي قدران إحسان بخلق إلهي وصميا مشركين تي مركي النبي محمد يا صحابته أي وضد قال لما ينبى النبي صحابته يسلقوا يري وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة sida ayakuba dhammaan in la dagaalamayaan dhamaantood raggoogii dumarkoogii yaryarkoogii waaweynkoogii ay nuurka ilaahay inay damiyaan ay dagaal inagu soo wada qaadeen baa ilaahay yiri inkuna u dhanaada baa ilaahay dagaalka mushrikiinta aad kala hortageysaan wa'lamu laakin waxaad ogaataan baa ilaahay yiri anna allaha ma'al muttaqiin ilaahay walada cadadka badan le cudadka badan le ilaahay lama jire ilaahay wuxuu macooda yahay mar walba kuwa asaga ka baqa baa ilaahay la jiraa جندي بلاهي كورمي وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بإلهي وصوك البديع وأسو دقدق بإلهينا ليه محل أسو دقدق يا وصو كالبدينا يا جنة بلركيدو لإيجي يا سماوات كي أرادين فأولي اسكت حي وجنة انت لإيجي يا اللو دياريي كو إلهي كبغي الله كعبصدا جنة اللو دياريي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا جنة بلاهي كصور رمي في سورة مريم لأن إلهي يقول الجنة وحنو يبوحينا ونديارني وأن دحل سين دونا أدونك دوشي ذكي الله كعبسك لها جنة هل دونا بإلهي مالك قيامها بنك قيامة خلق ودن أي ودا جوغان النبي يقول عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا مالك قيامة دتك أيا لصو حشرين دونا أيكو قاقاون أو عورض دي أي موقتو أو درئي كما من أنا الحدنين عائشة رضي الله عنها واتيتري يا رسول الله رقي دمر مالتها ما لستحسعون يا وقفك كلاميون إيجينون ديمونين مركب النبي يقول عليه الصلاة والسلام عائشة
qofka kale inuu daymoodo ma haleelaya buuri maalinkaas khusha can absaaruhum yakhrujuuna min alajdaasi kaannahum jaraadun muntashir muhطiciina ila addaaci yaquulu alkaafiruuna hada yowmun casir khusha can absaaruhum baa ilaahay araggooga kor bay u qaadayaan xagga sare unbay eegayaan ma gibidhsanayaan xagga iyo xaggaa waxa maraya eegi maayaan xagga sare eegayaanay leeyihiin maxaa ka soo socda xagga sare khusha can absaaruhum yakhrujuuna min alajdaasi qabuurahay ka soo baxayaan kaannahum jaraadun muntashir ayakoo aad moodda baa ilaahay ayax la shaydhiyey oo la firdhiyo la kala firdhiyey waa taqaanaan ayaxu markuu dalka yimaado xilliyada barwaaqadu ay timaado ayaxu yimaadaa waa ka dadka beeralaydu xilliga ilaahay ay ka barido weeyaan waayo beeraha ayuu ku ridaa maaragtaane calafka ayuu ka cunaa oo midhihii soo baxayay buu ka baabi'iyaa deedna markaasaa ilaahay ayax la shaydhiyey sidiisii baad mooddaa baa ilaahay sida qabuuraha maalinta bini aadamku uga soo bixi doonaan maalinkaa cid kula hadasha oo meel aad ku gabato ku tilmaamto waad jeceshahay soo maha ilaahay xaggiisa waxaa ka iman doona ogeysiis iclaan yaa cibaadii laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun aladiina aamanuu biaayaatina wa kaanuu muslimiin yaa cibaadii addoommahaygiyo baa ilaahay odhan doonaa ininka maanta dushiina cabsi iyo walwal midna ma saarno kuwa cabsoonaya ininka ma aha kuwa murugoonayana ininka ma aha maxaa yeelay adduunka dusheedii baad ku soo cabsooteen ininku adduunka dusheedii baad ilaahay kaga soo cabsateen oo macaasidii naftaadu ay jeclayd waxa kaa joojiyey waa alla ka baq waxaad ku xisaabtamaysa ilaahay baa ii jeedo i arkaayo i maqlaaya marka maanta ininku cabsooni maysaan baa ilaahay yidhi maadaama 60kii sano dusheeda adduunkaad igaga soo cabsooteen oo wixii wanaageenna farayna aad la timaadeen wixii munkara ee maaragtaana sharcigu inkirayna aniga cabsadayda aad uga joogsateen iniga maanta dusheena cabsiyay walwali walbahaar ma saarna baa la odhanayaa waa kuwe aladiina aamanuu biaayaatina waa kuwa adduunka markay joogeen aayaadkayga rumaysnaa baa ilaahay yidhi wa kaanuu muslimiina ahaa kuwa annaka noo hoggaansan tilka aljannatu alatii nuurisu min cibaadina man kaana taqiya baa ilaahay yidhi jannadaas waxaa loo yaboohay oo la dhaxal siini doonaa ilaahay addoomihiisii kuwii adduunka dusheeda ilaahay ayakoon arkin kaga baqaayey naarta iyakoon arkin ka cabsoonaayey war waxaas waa xaaraane ka joog buu sharcigu yidhi uu ka joogsaday meeshaasi waa meel xunaha mari buu sharcigu yidhi uu ka gaabsaday hadalkaasi waa qowl xun baa sharcigu yidhi uu ka joogsaday ficilkaasi sharcigu ma ogolee daabaa la yidhi uu ka joogsaday qaybka ayuu rumaysnaa qaybka waayo qaybku qofka muuminku ku xisaabtamaa maadaama adduunka dusheeda ilaahay kaga soo baqayeen aakhare iyaka waxaa la yidhi xorriyad baa la siinayaa idan taqwadu nolosheenna adduunyada maanta inagu adagee qof walba uu la daalaadhacayo waxaa nolosheenna toosinaysa waa alla ka cabsi waman yattaqi allaha yajcal lahu min amrihi yusra ilaahay baa sheegay qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada ee wixii macruufa ilaahay farayna ku yeela wixii munkare ilaahay ka reebayna ka joogsada muxuu leeyahay umuurtiisoo dhan baa ilaahay waxaa ka dhigayna fuday nolosha adduunyada kugu adkaani mayso inaku waxaan moodaynaa maanta markuu wadaad halkaa mambarka soo fadhiisto ee taqwada uu ka hadlaayo waxa inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhacda wadaadadan aakhiro bay ka hadlaan laakiin waxaa kaa maqan oo aanad garanaynin noloshaada adduunka waxa kuu fudaydinaysa waa taqwad taajir haddaad tahay tijaaradaada inaad run iyo ammaano labada aad ku darto waxa kaa keenaya waa alla ka cabsi haddaad nin mas-uula aad tahay mas-uuliyaddaada inaad ilaahay kaga baqdo oo aad cadaalad iyo ammaano iyo maaragtaan sidqi ummadda aad ugu shaqayso waxa kaa keenaya waa alla ka cabsi haddaad nin dhallinyaro aad tahay dabdu nafsi inaad yeelato oo naftaada macsiyadda aad ka xakamayso waxa kaa keenaya waa alla ka cabsi hadday gabadh muslimada ay tahaya oo ilaahay ay ka baqdo inay gabadhu guri joog asturan ay noqotona waxa ka keenaya waa alla ka cabsi ninka maaragtaanay dhakhtarka inuu ixsaan iyo naxariis ummadda ugu shaqeeyo
waxa ka keenaya waa alla ka cabsi alla ka cabsigu meel walba u gala alla ka cabsigu nolosheenu dhan buu qurxina ogaada madax hadduu yahay ninka madaxu hadduu alla ka baq leeyahay madaxnimadiisa saddex sifo la imanaya cadaalad buu yeelanoo ilaahay buu ka baqi nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadhii reer madiine ansaariyadda ahayd waxbay soo xadda gabadhaasoo nebiga waa loo keenay waa gabadh reer qoys aad u qiimo badan bay ka dhalatay markaasaa la yidhi gabadhan waa gabadhii magaca lahayd ee reer hebel ka dhalatee ayaa nebigeenna u sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo u shafeecad qaadaya saxaabadu way ku dhici waayeen markii u dambaysa waxaa la yidhi nebigu asxaabtiisa wuxuu ugu jecel yahay usaamata ibnu zayd buu ugu jecel yaho ninka unbuu nebigu hadalkiisa maqli baa la yidhi xibbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markaasuu usaama nebiga u yimiday markaasuu u sheegay u yidhi yaa rasuulallah gabadhani waa heblaayo reerkaana way ka dhalateen maa la iska dhaafaa inta gacanta laga goyn lahaa markaasuu nebiga wejigiisibaa badilmay yaa usaama buu nebigu ku yidhi maxad xuduudda ilaahay baad adigu adeerka ka tahay buu yidhi maanta hadday qofku hadduu waxaday sharciga wuxuu qabaa qofka in sharciga la mariyo gacanta laga gooyo hadduu qofku sinaystay xadkii in laga jara buu sharcigu qabaa wallaahi baa ku dhaartee buu nebigu yidhi dhegaysta waryaada buu yidhi dhegaysta ummadihii niga horreeyey waxaa lagu halaagay kooga shariifkaa markuu waxadana way sii daynayeen kooga daciifkaa markuu waxadana xadkay marinayeen oo gacanta ayay ka goynayeen wallaahi baa ku dhaartee buu nebigu yidhi faatimo ina muxamada hadday camalkaa xun ay ku dhici lahayd oo tuuga ay ku dhici lahayd wallaahi gacanta ka goyn lahaa buu rasuulku yidhi mas-uul markaa tahay cadaalad inaad yeelatid oo dadkaaga aad u cadaalad samayso waxaad u baahan tahay inaad ahaatid qof marka hore ilaahay ku xidhan adigu haddaad ilaahay ku xidhantooda alla ka cabsi leedahay wax kugu adkaanaya ma jiraan sheekh ismaaciil allah u naxariistay baa odhan jiray marka nimanka madaxda aan ziyaaranayno wadannadeennaasi waxaan u maleynayaa nin madaxweynaha ma soo marin ilaa sheekh ismaaciil uu la kulmay inta badanna waan la socday waxa uu ku odhan jiray mas-uul baa lagaa dhigay talo ummadeed baa laguu dhiibay 4 khasladood haddaad leedahay ummaddan iyo dalka waa dhisi buu ku odhan jiray ummadda wax waad u qaban karin khasladda koowaad waa inaad ahaataa qof adigu ilaahay ku xidhan khasladda labaad waa inaad ahaataa mid dadka ilaahay ku xidhaya khasladda saddexaad waa inaad dalkaaga iyo dadkaaga ilaahay dartii ugu shaqaysaa khasladda afraad waa inaad mushqaayaddaada iyo ajarkaaga adigu ilaahay aad ka qaadataa afartaa khasladood haddaad leedahay dalka iyo dadka ilaahay baa kula dhisiyo kula toosin waan iigu soo celinaya dhegaysta khasladda koobaad waxa weeyaan hadduu ninka mas-uulku isagu ilaahay ku xidhan yahu ilaahay ka baqaayo uu leeyahay ilaahay baa i arkaayo i maqlaaya oo ilaahay baa aakhire ila xisaabtami doonaa hadduu leeyahay marka labaadna dadka uu mas-uulka ka yahay haddii uu leeyahay waran waxba iniima hayo wax waliba ilaahay baa haya amniga ilaahay baa haya arsaaqadda ilaahay baa haya barwaaqada ilaahay baa haya nabadgelyada ilaahay baa haya ilaahay u toobad keena wixii dembi aad gasheenna ka dhex baxa wixii madaalime dad uu leeyahay haysataanna dadka waxooga iskaga celiya iscafiyo isa saamaxa masaajidda galo ilaahay barya oo ilaahay u toobad keena hadduu ninka madaxu dadka ilaahay ku xidhaayo ajar iyo mushqaayadiisana uu ilaahay ka qaadanayo dadkana uu ilaahay dartii ugu shaqaynaayo afartaa khasladood hadduu ninka mas-uulku leeyahay mas-uulku doonay ha noqdee ilaahay ninkaasi waa garab galaya garabkiisa ilaahay baa galaya ilaahay baa dalkiiyo dadkaba waddada fiican u marinaya hadduu afartaa khasladood lahayn buu odhan jiray sheekh ismaaciil isaguna uu dumayaa ummaddana uu sii dumanayaa buu odhan jiray الدعوة والدعاء علماء الدعوة محل الدعوة والدعاء maalintiina dadka xagga alla ugu yeedh habeenkiina ilaaha raxmaanka gacmahaaga hoos dhigo waxaa tiraahdaa ilaahow addoommahaaga u naxariiso maalinkiina basharka ilaahay u soo jeedi
habeenkiina naxariista ilaahay addoomihiisa u jeedi labadaas shaqo nabi maxamed ilaahay uu siiyey labadaasaa keentay inay dadka adduunka ugu badan maanta magaca ugu badnaaya sanadada lala baxay caalamka ma taqaana waa maxamed calayhi salaatu wasalaam sanawaadkii ugu dambeeyey gaaladu ay si walba islaamku ula dagaalamayeen ayaa la baaray qaaradda Awroba dhakhtarada dadkii ku dhashay magaca ugu badan ee lala baxay sanadka waxaa la yidhi wuxuu noqday محمد عليه الصلاة والسلام بركة دين إلهي بالله إلهي بإلى الشنية إنك إلهي بأن نقول شرفوا إن السيو نقول كنتم خير أمة أخرجت للناس بركة شغال الدين تونوض درنا جماعات أما علماء مؤتمر قبتي أما جماعات هلك كورتي حلك الدين ديك كلية ما صارنا حلك الدين وين ولا سارين بركة الدين تضن مدينة بسيسا wixii dadnimadeena dhisayna inaan hagaajino hor u kacno waa waajib diini weeyaan marka inaan dacwada ka shaqeyno oo diinteena barano oo ubadkeena barno oo guryaheena taqwada iyo diinta iyo iimaanka ku tarbiyadayna waa arin loo baahan yahay soona diyaar garoobada insha Allah dhahada Allahna inuu waafaqo wixii khayrana soo dhaxmarana Ilaahay baan soo dhaxmariyay wixii kale naga dhacayna Allah inoo dambi dhaafo hada wa billahi tawfiq sallallahu ala sayyidina Muhammad إن شاء الله نعم شيخ ذنبنا الله داف ضد بدن بولا لهنا إنه دعية له ودعاء سننا إن شاء الله دعاء جمعنا إن شاء الله ومستجاب إلى هينك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا القوة المتين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا عزيز في ملكه يا حكيم في صنعه ويا عليم في خلقه يا من أظهر الجميل ستر القبيح ولم يأخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين صل وسلم على محمد في الآخرين صل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا وتبنا إليك اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك صلى الله على نبينا محمد